وحرجينا دفعة أفراد إني كدونا دفعة هيك إن شاء الله تعالى. waxaan aaminsanahay ururka lixdanaad inuu ka duwan yahay ururada kale waxaad kaga duwantiin mas'uuliyadda idin saaran mas'uuliyad ka culus baa idin saaran ciidanka intiisa kale waxaan aaminsanahay inaad tihiin kuwa tusaale u noqda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana u tihiin wax badan annaga waxaan dareemaynaa inaad tihiin dufcaddii u dambaysay saddexaad marka la xiraay hal kelmad baan idinku yidhi kelmaddaasna waa rumaysan maalintaas waxaan idhi waxaad tihiin kuwa ka mas'uula maskaxda dawladda Soomaaliyeed waxaan dareemayaa weerarkii ugu dambeeyay oo la idinku soo qaaday sida aad isaga difaacdeen waxaan aaminsanahay maskaxdii inaad difaacdeen waan idinku hambaliyeynayaa cadowga maalin kasta wuxuu diyaarinayaa istiraatiijiyad cusub annagana waxaana looga baahan yahay in tababarka annaga iyo istiraatiijiyad cusub mar walba aan diyaarino labadayda dhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaadeen waa maalintii koowaad ee dufcaddii afaraad ee ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada qaranka waxaana kaaga muuqanaya kala duwanaanshiyaha dhaqaaqa iyo istaagga saxda ah ee askariga waxaa askarta xilligaani u bilaabanaya gudashada waajibaadka tababarka dhalaalada benkii dhumalaysi bodo wax dhegaysa mooye dhaxaniima qabatee wakhtigani ciidanku waxay isku diyaarinayaan orod biitin ah kaasi oo loogu talagalay in askariga jirkiisa uu ku dhismo dhalaalada habeenkii dhumalaysi bodo wax dhegaysa mooye dhaxaniima qabatee intaasi kadib waxay isku diyaarinayaan jimicsi qaybo kala duwan leh oo askariga tababarka ku jira lagu adkaynayo jirkiisa waxay isku diyaarinayaan ciidanka in ay sameeyaan gaadaka ciyaar gaarkiisa oo noocyo kala duwan leh darartii cadceeda labadayda dhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaadeen askartu waxa ay gelayaan fasal lagu siinayo casharo kaasi oo lagu barayo waajibaadka askariga lagu leeyahay shuruucda ciidanka ilaalinta madaxda iyo badbaadinta shacabka casharada ay qaadanayaan askarta waxaa bixinaya macallimiin saraakiil ah oo ka tirsan hogaanada kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa jira shuruuc fara badan oo kala duwan sida booliis military waxay u dhow yihiin booliiskana waxay u dhow yihiin shacabka sidaas darteed ciidanka militariga marka la rabo inay soo galaan shacabka waxaa laga soo galaa ciidanka booliis military halka oo dilka Kenya waa afar oo socda waa dil kasta qof kas ku dila waxaa lagu ciqaabayaa dil joogsa Soomaali maxaan ku dhiganaa markaan qofka kas ku dila qof walba markaad ku dareynaa wuxuu leeyahay ninkaas kas ku dilay waa in la dilaa dilka kas kormaadey waxaa leeyahay saddex aytan markii dambiyada culus oo dhan waxaa la sameeyaa shuruudahaas markay jiraan ayaa leetaas markay buuxsantaa dambi noocaas oo adeeg kara meeqaan u qaybin maxkamadii laba qaybood maxkamadu waa maxkamadaha ordinariga caadiga oo nidaamiga waa maxkamadaha rayidka aan shacabka aan waa maxkamadda gobolka maxkamadda degmada maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda sare waa afartaas maxkamadood waxaa jira maxkamad gaar ah waa maxkamadda ciidamada kale bise gaar waayo dambiyadaas ka taqaadaaya kuma jirto maxkamadaha nidaamiga ordinariga hadda si fiican loo fahmo
سيف عمر كامل وفهم أوكي محكمة لها عادية وكذا سلامة يمكن السريان صدق لها هذا هو سيوهر درجة القوة وحاول محكمة الجوكة هي محكمة الدكان هذا من الفهم مسكح زوجي ده لا والله بسمعوا كمان هذا الأول محكمة الجوكة محكمة الدكان والسمين هذا القوة بيسوي جنا وحقوق لقيت سن أود وأنا اللي كتان مرة محكمة أود وليلة أود أوكل لقيت سن أود أوكل لقيت سن لكن لا اسمه كمان أود أوكل لقيت سن ما دمية العقاب وقبل انتهي 3 سنة أو حرقة يوحي كيا taliyaha ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada qaranka gaashaan leh odawaay Yuusuf Raage ayaa askarta kula dardaarmay casharada ay bixinayaan macallimiinta sida ay ugu faa'iideeyaan walaalahooda kale ee aan jaanis ku heleen in ay ka qayb galaan tababarkani dhammaan inta ka soo qayb qaadatay hadii ay tahay hogaamada kala duwan maxkamadii saaxiibadeena kale nala joogan oo naftirkoodu kaalin weyn ugu jira ciidamada qalabka sida saxaafadni warbaahintii qaran ciidamada qalabka siday iyo dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenka iyo alifleeda ee dableyda ka soo qayb qaatana way ku mahadsan yihiin iyo macallimiinta sharafta leh oo arintan runtii ka qaatay kaalin aan la hilmaamin kal marnaba waxaan rajaynayaa insha Allah hadii Ilaahay ogolaado tababarka asiga ah in uu noqdo mid guud ahaan annaga gaar ahaan adinka qaadateen aan ku amal fari doono waxaad ogtihiin in aan ku dhex jirno shaqo badan waxaad ogtihiin in aan ka shaqaynayno shaqooyin inta badan ka duwan shaqada ciidamada sidee uga duwan tahay ina isweydiino waxay uga duwan tahay dhamaanteen hal waajib aan nahay hal shaqan haynaa laakiin waxyaabaha aan uga duwanaa maxay yihiin waxaan ku dhex jirnaa bulshada waxaan ka shaqaynaynaa wadooyinkii waxaan ka shaqaynaynaa xaafadihii dhaxdooda waxaan ka shaqaynaynaa madaxtooyadii qaranka iyo xarumihii muhiimka ah ee dawladda saas darteed waxaan noo imaanaya bulshooyin kala duwan waxaan nala jooga aabbayaashi waxaan nala jooga hooyayashi waxaan nala jooga caruurtii waxaan nala jooga dhalinyaradii waxaan nala jooga siyaasiyiintii laftirkooda oo kala duwan dhammaan ummadaas oo dhan marka waxa la rabaa inaan noqono dad u leh dulqaad dad u leh fahan ay ku gutaan waajibkooda ayadoo aysan imaan wax qaladaad shaqadoodina ay noqoto sidii looga baahnay oo aysan noqon mid ay ka muuqdaan duduleelo ama habacsanaan saas darteed waxaan rajaynaa insha Allah taala in aan noqono kuwa ku amal fala tababaradii kala duwan ee ay qaateen tababar halkan idin kaga bilaabamay dhamaantiin qof kasta ee idin kamida ama waa kii saddexaad ama waa kii afaraad ama waaba ka sii badan yahay saas darteed dhammaan waxyaabaha soo dhan qof walba inay isu geysato isku kaabto ay noqoto qof dhameystiran oo waajibka shaqo ee nasaaran ee nagala sugaayo ee noola idmaday si habsami leh oo wanaagsan oo habacsanaan aysan ku jirin oo duduleelo aysan ka muuqan oo dishibiliin ku dheehan yahay oo wadaniyad ku dheehan tahay oo ay ku dheehan tahay dad jacayl iyo dal jacayl inaan u qaban doontaan rajayna insha Allah annagana aan dabcan dhamaanteen anako garbaha ishaysana oo isgarab taagan oo hadafkeenu yahay wanaaga iyo qarannimada inaan wada gaari doono maalmihii ugu dambeeyaan ku jirnaa gabagabadii koorsadeenan ku jirnaa waxaan idinku la dardaarmayaa mar kasta in aad xusiisnaataan casharadii kala duwanay waxaan rajaynayaa inaysan noqon doonin kuwa meeshii aad ku qaadateen aad uga tagtaan waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa badiya dulqaadka iyo samirka maadaama aad bulshada ka dhex shaqaynaysaan tababarkan ayaa soconaya muddo 90 maalmood ah kaasi oo ay ka muuqanayso ciidanka isbedel dhinacyo kala duwan leh waxayna haatan marayaan socod dheer ilaa 15 kiiloomitir inta ay ciidanku socodka ku jireen waxaa loo dhameystiray agabkii lagu talagalay askariga in uu ku difaaco diinta dalka iyo dadka waa difaacidii afraad ee tababar
loogu soo xiro xarunta taliska ururka lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada qaranka.